بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم المسلمين كدمانتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريكم مثلا قرنيسان وجهيجا waxaan sheegayaa fariin kooban halkani oo ku saabsan xariiqa la iska xidhay suldaanka la yiraahdo Suldaan Abshir, Suldaan Maxamed, Suldaan Ducali, suldaanka xeebta dhulka la yiraahdo awdal iyo Gabriel oo dadka lagu xidhay isagoo wax allaaniyo wax geefa sameeyay waxa lagu xidhayna waxay ahayd dhulkiina macdanta la bilaqaysanayo shisheeyahu bilaqaysanayo dadka dibadaha ka yimaado ka eegta dhul waliba oo ah dhulka Soomaalida weeyaan macdanta laga bilaqaysto waxa uu ka hadlayay weeyaan wallo maadmaatinayo wallahi marka horeba waayo in xaqiiqada ka hadlo aha xaqara ka hadla ummadda Soomaaliyeed yain gaar ahaan dadka uu ka soo jeedo waxaan oran lahaa in yaro kooban hadda wii ka badan bay gaadhay inta uu ku xiran yahay xaq darrada lagama jawaab celinin dad badan oo ka hadlayna waa laga diiday in la iska soo daayo dadka xidhay horta waxaan oranayaa waa qabiil ba iska xidhay dawladda ma xidhan waayo meesha dawladda iyo maamul midna kama jiro hadda la ictiraafsan yahay ama u egba maamul kama jiro xoog baa ka jira qolo dadkaas uu ka soo jeedo suldaanka uu yahay sababta intaas horta u sheegay kuwa kale xidhayna intaas aanu sheegay iyo shacabkoodaba waxaan oran lahaa maaha waxaan leeyahay nimanka xidhayow saddex cisho gudahood haddaad ku soo dayi weydaan anna waxaan amrayaa in rag la xidho u dhigma suldaankaas u dhigma in loo xidho oo beesha xidhatay jeelashiina way jiraan oo hadhadabina jeel baa idinku yaalla horof meesha la yidhaahdana jeel baa idinku yaalla labada jeel baad mid keenaysiin oo ku soo xidhaysiin rag u dhigma iyo lagu soo xidhay rag u dhigma haddaad soo dayi weydiin suldaanka waxaan idiin sheegayaa nimankaasow waxaan amrayaa ciidamada la yidhaahdo bircadda guutada koowaad ee laguna naanaysay guutada jiilaani ururkeeda degdega baan amraya xaariga la soo xidho abaalmarintu weeyaan oo lagu soo xidho rag lamida keliya haata intaasaan idiin sheegayaa waa Suldaan Abubakar. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.